kulanti wacan wanaagsan dhamaanba akhyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah aanu ku eegi doono sidoo kalena aan kaga doodi doono caqabadaha dhanka siyaasadda dalka ka haysta haweenka dadka laga tirada badan yahay iyo waliba dadka iyagu naafada ah waxa doodana caawa igala qayb qaadan doona Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud oo ka socda golaha wakiilada Soomaaliland Sheim Axmed Yuusuf oo ka socota dalada naafada qaranka Soomaaliland Nafiisa Yuusuf Axmed iyaduna ka socota ururka Nagaad Maxamed Saleebaan Cabdilaahi oo ka socda Adam Academy doodana waxa iyagu iska kaashaday Bulsha TV iyo waliba Adam Academy su'aasha ugu horeysa ee aan soo qaban doono horta dhamaantiin waxaad leeyahay soo dhawaada Bulsha TV soo dhawaada aad baan idin salaamaya su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa ugu horeyn waa maxay caqabadaha ka haysta inay ku guuleystaan doorashooyinka dadka naafada ah haweenka iyo kuwa laga tirada badan yahay su'aashaasi waxaan ugu horeysiinayo aan weydiinayaa Nafiisa Yuusuf oo ka socota ururka Nagaad ugu horeyn waxaan u bogaadinayaa Bulsha TV iyo Adam Academy oo programkan wada oo isugu kaya yeedhay xaqiiqatan dhibaatada ka haysata saddexda group ee suwan inay ka qayb qaataan doorashada ama siyaasadda dalka waa caqabad muddo dheer soo jirtay intuu dalkan jirayba soo jirtay guud ahaan waxaynu oran karnaa sharciga de uma jirto oo maxay ahayd sharciga doorashooyinka kumay jirin dumarka inkastoo constitutionka ay tahay inay qof wal oo muwaadin reer Soomaaliland la dooran karo waxna dooran karo laakiin caqabadaha hortaagan ba waxay noqotay constitutionkii de dumarkii ma ku jiraan taasi waxba kama tarin marka koota ayaa dumarka muddo aan ugu advocate gareynay kootada sababaha keenayna waxay ahayd markii de muwaadinku inuu waxna doorto lana doorto ay ahayd lagu dooran waayay dumarkii oo ay ka hadheen doorashooyinkii sababtaas keentay in maxay ahayd kootada la raadiyo ama saami ay ku yeeshaan golayaasha xagga executive-ka inta badan waxa weeyaan madaxweynaha magacaabo madaxweynaha iyada taasi ku xidhan tahay laakiin xagga doorashooyinka dadkii oo u buslayn oo hab qabaa'il isku dooranayo qabaa'ilkiina oo dumarkii meesha ka saaray taas caqabadaha ugu waaweyn ah marka naafada iyo minority-gu dumar waa dumaruun iyagu waa isla wada mid marka caqabadahaas ay ku hadheen oo inta ugu badan ah yahay Sheim Axmed ayaadana su'aasha ayaan weydiinaysa marka bal adiguna sidee kula muuqataa maxay tahay caqabadaha ka hortaagan saddexda qolo inay siyaasadda dalka ay ka qayb galaan waxaan mahad celinayaa Bulsha TV iyo Adam Academy oo yani suurtageliyay inay soo baxdo maanta doodani maadaama doorashooyinkii lagu soo waajahan yihiin su'aashaadii weydiisadaan dib ugu noqdo يعني dadka naafada runtii kuma jiraan intii Soomaaliland aasaasantayba inay doorashada ka soo muuqdaan ka soo qayb galaan caqabada ugu weyn ee ka haysataan waxa la oran karayaa dastuurka jamhuuriyadda qoraya inuu qofka doonayo in loo codeeyo amba golaha baarlamaanka amba golaha deegaanka amba ilaa madaxweyne la gaaro inuu physical ahaan yahay qof dhameystiran taasi waxay caqabad ku noqonaysaa dadkii naafada ahaa inay ka soo muuqdaan siyaasadii sida darteed adigu madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka ka degay mudane Axmed Maxamuud Siiraayo ayaa ka qoray siyaasad dadka naafada ah inaan yani physical ahaan loo eegin oo yani dastuurkana loogu noqdo dib oo qodobka laga saxo marka uu qoran yahay wali laakiin golaha lama horkeenin insha Allah inta la ansixinayo golaha la horkeenayo anaguna waanu hadli doonaa codkaygana waanu gaarsiin doonaa meel kastu gaarayo si aan uga soo muuqano oo u dareeno inaan dadkayaga ka mid nahay wax kasta oo jamhuuriyadda qaybsanaysana aanu la qaybsano Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud ayaan isagana bal ra'yigiisa iyo soo arko maantiin waan idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii arrintaas maanta dee ilaahay baa mahadlaya gruubkan ka shaqeeyay inaynu halkan ku kulanana aad iyo aad baan usii salaamayaa Adam iyo TV-ga bulsho runtii markaan arrintaa gudagalo
runtii in badan baa laga dhawaajiyey barnaamijka laga dooday dood dheer laga galay laakiin mar walba caqabadu waxay ahayd dastuurka xabagta keliya ee sukaan haystaana waa dastuurka qodobka number 8 wuxuu leeyahay qofku waxna waa dooran karaa waana la dooran karaa laakiin kooto halkaas ku xidhaya wuxuu leeyahay qof walba oo muwaadin Soomaaliland waxna uu dooran karaa waana la dooran karaa qodobkaas ayaa marka si fiican loo fiiriyo caqabad ku noqday qodobkaasna dee kulley dastuurku waxa weeye waa la furi karaa waxna waa laga bedeli karaa ayad quraana maaha laakiin qodobkaas intuu qodobkaasi sidaa yahay ma suurtoobayso in kooto loo sameeyo laakiin in xeerar iyo barnaamij loo sameeyo mar walbana xeer haddii la sameeyo wax kasta tallaabo kastoo la qaado iyo step kastoo la qaado waxaa ka hor imanaysaa waxaa la leeyahay non afford waxba kama jiraan inta dastuurka qodobkaasi ku jiro laakiin waa dee wax hawl qaran oo laga wada tashan karo hadda sida Nafisa ay ka dhawaajisay inantu ka socota hadda nagaadna iyo inanta kaleba sheyma waa sidaas dastuurku waxbuu sheegayaa mar walbana wixii dastuurku sheegaya unbaa lagu soconayaa laakiin wax ka bedel iyo kaabis waa lagu samayn karaa dhibna maaha waxa weeye qodobo kooban unbaa lasoo qaadayaa presidentbaa dikreeto kusoo ujeedina waa dastuurkaas taana waxaa lagaga gudbi karaa madaxweynaha oo dee markaa in hawl qaran laga galo sidee looga bixi karaa waxa weeye taasoo laga tashado xisbiyaasha qaranka golo qaran wax walba ay isugu yimaadaan markaa go-aanka ugu dambeeya madaxweynaha leh madaxweynuhuna markaa dikreeto kusoo gudbin karaa goluhuna saasay uga doodi karaan saasaana lagu dhammayn karaa laakiin waa talo qaran oo u baahan in laga howlgalo waxaad iigu dhibtaa mikrofoonka maxamuud Saleebaan Cabdullaahi oo ka socda hay'adan Adam Academy haye maxamuud marka hore ilaahay baa mahadle isku keenay kulankan aadka u qiimaha badan leh waxa weeye marka laga hadlayo caqabadaha ka haysta beelaha laga tirada badan yahay doorashooyinka iyo ka qaybgalka siyaasadda walaalahayga iga horeeyay xildhibaanka iyo Nafisa iyo sheymaba waxaan ku waafaqsanahay inuu dastuurka yahay qodobka 8 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland horta waan soo dhaafay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax xeerka ugu sareeya dalka xeer kasta oo yaal intaas oo xeer baa yaala 3 xeer buu saxeexay hadaan qaldanayn mudane Cabdullaahi Ciro marka dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa soo xeer bay isaga waxa weeye laga soo dhigto saldhiga ama saldhigwa qodobka 8 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegayaa sinaanta muwaadiniinta marka uu ka hadlayo sinaanta muwaadiniinta qodobkaasi waxa uu leeyahay muwaadin kasta oo ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay dhammaan muwaadiniintaas markaa waxa way siman tahay iyadoo aan lagu kala saarayn haybta midabka afkaarta siyaasadeed oo aaminsan yahay qodobkaas wuxuu siinayaa muwaadiniinta ku dhaqan gayigan in dhammaantood ay siman yihiin wax lagu kala saarayana aysan jirin sidoo kale qodobka 22 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad oo qoto dheer u qeexayaa in muwaadin kasta oo gayigan ku dhaqani uu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna uu dooran karo marka inagu ka duulana dastuurka waxa weeye waa xeerkii dalka ugu sareeyay saan hore soo sheegay isaga baa lagu dhigayaa sida xildhibaanku sheegay wax xabagti ummadan isku haysay marka sida xildhibaanku sheegay xildhibaanka ku waafaqsanahay waxa weeye maaha aayad quraan oo munassalo samada ka timi waxa weeye waxba laga bedeli karaa waxa weeye waxa lagu sameyn karaa wax ka bedel iyo kaabis waa la furi karaa si dadka ka maqan siyaasadan saxadan siyaasadu ama doorashooyinka ama wax kasto ay tabanayaan waxa weeye ay rabitaankooda ama wax kasto iyaga protection oo ilaalinaya loo soo dhaxgeliyo anigu waxaan qabaa in dastuurka la furo sidee loo hirgelin karaa soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliland ee kotooyinka ku siiyay naafada haweenka iyo dadka laga tirada badan horta wax kastaba waxa weeye waa loo kaca cid baan oo kacda dhibkuna waxa uu haystaa cidda marka wax ka gubanaysa ee doonaysa inay ama siyaasad ka soo qayb gasho ama ay waxa weeye wax xeer u damaanad qaaday ay helaan iyagu waa inay first one iska bilaabaan oo ay yiraahdaan waxa weeye waxaasa naga maqan la arko iyagoo miitina samaysanaya iyagoo ka tashanaya iyagoo kaashanaya hay'adaha dawliga ay khusayso arrin kasta oo hoostooda taal sida tan doorashada xildhibaanka way nala fadhiyay waxa weeye waxa la oran doonaa xildhibaan cid kasta oo ay dhibtaasi haysataa qaabkii ay u soo gali lahayd waxa weeye waa in la arkaa iyagoo shirar meeting isku xidhnaasho iyaga dhexdooda group kasta oo ka cabanaya wax ka maqan ka taas uma isleeyahay way ugu dhowdeen oo loo hirgelin karaa
isku xidhka xildhibaanka sida aragtaa waa mahadsan tahay dee waxa weeye wax walba sida aan sheegnay waa dastuurkaas moogtahay dastuurkaasina waa xabagta isku keen haysa marka iyadoo aynaan wax ka bedelin ama kaab isku samayn step lama qaadi karo wax kastoo la qaadana hadhow go-aanka ugu dambeeya waxa la oranayaa waa nanoford waxba kama jiraan xeerkii iyo dastuurkii baa laga horyimi marka way fududahay laakiin markay iyagu dadaalaan activity la yimaadaan hadda ka hor waxaan xusuustaa boorame inaanu u tagnay barnaamijka oo group golaha wakiilada ka mid ah aanu u raacnay nafiiseeyo oo gruubkaasi cox buu ahaa ka hadlayay sidee loo hirgelin karaa marka wax badan markaanu eegnay qeexnay haddana mar walba qodobkaasi waa naga horyimi maalmihii dambe aanu golaanimo wax lamidinka dastuurka jebinaya qodob aan dastuurka aan ku jirin baad ka hor timaadeen annagiibaa markaa aada iyo aad laakiin waa wax haddii shir qaran la isugu yimaado ama talo qaran laga yeesho waa wax laysla fahmi karo oo xal loo heli karo waxaan sheymaa iyadana su-aasha aan weydiin doonaa sheymay sidee loo bedeli karayaa qodobka sharciga caqabada ku ah kootada bal adiga ra'yiga runtii waa su-aal fiican mudan in laga jawaabo waxaa loo bedeli karayaa horta dastuurku sida uu sheegay xildhibaanku waxa weeyaan xabag isku haysa dadkii maanta qoraal ahaan uu ku joogana in dee yacni laga hor yimaada waa qalad laakiin in shirar laga yeesho oo yacni la dareensiiyo dowladda iyo dadkii dastuurka qorayba in dad dhan ka dhex maqan yihiin koota ahaan siyaasad ahaana aanay ugu jirin oo saddexdaa qayboodoo lasoo sheegay naafada iyo haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay annaga oo israacno isku duubni muujina shirarna ka samaysana baaq dheer iyo mid gaabanna u dirna dee cidda khasooysay madaxda iyo dowladda iyo wakiilada dhammaantooda unbaa lagu bedeli karayaa aayadna maaha saa hore loosoo sheegayo dib u shaandhayn iyo dib u hagaajin iyo wixii ka maqanoo loo saxo unbaa lagu bedeli karaya laakiin marka hore in anaga baaq iyo dee yacni nagala maqlo in anagu aanu ka maqanay meeshii unbay wax ku hagaagayaan oo saddexdii marka dadka baaqa diraya waa kuwe waa haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo anagoo aan naafadii markaas idinkoo aa u dagaalantaan in sharciga anagoo aan ka dhex maqana sharcigii horta xildhibaanka waan u mahad celinayaa caawana waxaa halkaa iiga muuqatay in haddaan nahay haweenka reer somalilan dhalanteedna lagu haasaawinayo maadaama imaka ay muxuu ahaye markii ugu horreysay ay ahayd uu madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu ay sharci uu ku jiro sharcigii doorashada oo ku jirto kootadu ay usoo gudbiyeen golaha baarlamaanka maadaama xildhibaankii golaha baarlamaanka ka socday islamarkaana gruubka kokoskee nagala shaqeeya arintan kootada shirweynaha uu xildhibaan cabdiqaadir sheegayeyna aan wada joognay annagu ka haween ahaan waxaanu aaminsanayn maanta aaminsanahayna in arintaa kootadu intii hore kasoo dhawaatay maadaama sharcigii doorashooyinka ay ku dhex jirto waxaanu baryahanba u ololeyneynay inaanu golaha baarlamaanka unbay hayday golaha deegaankana lagu daro laakiin caawa qabyo badan baaba halkaa iiga muuqata waayo constitutionku article 8 oo kaliya maaha article kale oo loo cuskaday in xeerkan kootada lagu daro oo ay dumarkuna u baahan yihiin ayaa jira article 36 haddii aanan qaldanayn waxa weeyaan articleka dee sheegaya cidaha tabashada leh dadka iyaga maanta halkan fadhiyo oo kale ah in mudnaan gaara la siiyo maadaama uu articlekaasi sheegayo maaha ka xagga negativeka un in la qaata marka la doonayo dee consens iyo isu soo dhoweyn inka xagga waxtarkana la qaatay ahayd annagu muxuu ahaye ka haween ahaan aad baanu dadaalla uga wadnaa arintaas isla gruubka iyagan saddexda qolo matalaya haweenka naafada iyo dadka laga tirada badan yahay waxaa jirta mashruucaanu wada wadno oo dhammaantii ah uun in sidii loogu ololeyn lahaa arintaas iyo dadkaasi siday qeyb uga noqon lahaayeen kala duwani oo ay nagu taageertay dowladda ingiriiska xafiiskeeda hargeysa aad baan ugu mahad celinaynaa markay noqoto kulamada iyo wacyigelinta iyo waxyaabahaas koley waa anaga hawl noo taala dadaalkaygana waanu ka gelaynaa laakiin waxaanu ka codsanaynaa walaalaha yaga iyaguba 15 sano ku fadhiyey sharci dhaaf dee inaanay article keliya eegin ee ay eegaan masiirka dalkan iyo dadkan iyo bulshadan weliba bulshada ka badan baanu nahay reer somalilan bulshada ugu badan baanu haddaan nahay haweenka anigu anoo iswada raacinaya oo labada iyadan dhinacee kalena raacinaya maadaama bulshadii ugu badnayd ay tahay
dee 180 qof oo iyaguba muddada intaa lee kuraasta fadhiyey article keliya inay noo yeedhiyaan kama aqbalayno kamana yeelayno. fiisa waad saxan tahay laakiin wax walba saldhig waxa waa dastuurka maadaama dastuurku uu yahayna laakiin dee waa kosaso waa laga wada hadli karaa waana la soo jeedin karaa laakiin meesha ay taladu ka go-aysaa oo ugu dambeysaa waa madaxweynaha dalka. anaga waxba idinma diidanin waan ognahay inaa activity leedihiin 65% inaa wax soo saarka dalka wax badan ka qabateen laakiin qodobkaas dabarka idinku dee waad ka ololayn kartaan waa laga saari karaa meesha laakiin maadaama aad sheegtay inaad dadka ugu tirada badan tihiin maaba dadaashaan oo idinku isu codaysaan idinkaaba cod kula soo bixi kara marka wax walba waa tijaabo haddaad tijaabisaan hadda duruufaha inagu xeeran oo laga baxo oo hadda waataa doorashada lagu murmaayo haddii la isku raaco matalan waa kulle waqti waa la haystaa lagu furi karo dastuurka laakiin haddii ay suurtoobi weydo cod waa isku soo saari kartaan haddaa midoodaan raggaba waa ka badin kartaan idinkuanba tuujin golaha wakiilada laakiin annagu mar walba konsaska idinla shaqaynaya baan nahay heegan baan idin nahay laakiin calooshayda inaan hilib ceedhin u qariya maaha beenna inaan kuu sheego maaha ee dastuurkaasaa dabar kugu taas marka laga gudbana mar walba annagu waanba idinla shaqaynaa diyaar baan idin nahay waa mahadsantaha. maxay ahayd su-aasha xigtaa waxay noqonaysaa haddii kootadu ay hirgeli weydo waa maxay qorshaha idin xiga? horta sidaanu rajaynayna maanta inay hirgeli weydaba ma rajaynayna ama xeerka lagu dooranayo xildhibaanaday la dhiman ama way la noolaanaysaa. xeerkaasay ku dhex jirtaa kaasubay maanta la dhimanaysaa ama la noolanaysaa. walaalkayga dhinaca iga xiga ee muxuu ahaaye muwaadinkii xaquu leeyahay baan anba leeyahayo xeerka lagu soo dooranayaan kula jiraayo ama way wada dhimanoo doorasho lagu qaban maayo xeerka ama kaasun baanu kusoo wada baxaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. haddii ay kootada hirgeli weydo muxuu yahay qorshaha idin xiga aad ka yeelanaysaan arrinka isaga? horta insha allah waxaan rajaynaynaa inuu xeerkaasi noo hirgalo oo yacni intaa dowladdu soo dhisnayd oo dhan maadaamaanu ahayn saddexdayadaasi suwani dad dulman inay noo hirgasho maanta waxayga dib loo eego rajadayada weyn baaba ah inuu noo hirgasho dee hadday hirgeli weydo waa sidaan hore u sheegay waxa weeye inay tartamaan oo iyagu isku tashadaan oo miitigyo tiro badan qabsadaan oo iyagu ay dhexda xidhaan oo ay dadaalaan oo activity extra ay la yimaadaan. bismillahi raxmaani raxiim. horta haddii aad balaan u dhaqaaqayso ama aad qorshe u dhaqaaqayso waxa wanaagsan inaad category kale samaysato aad tiraahdo balaan a baa waxa weeyaan ku dhaqaaqaya balaan a hadduu shaqayn waayo balaan b maxaa iga qorshaysan haddii qorshaha koobaad u shaqayn waayo haddii ay shaqayn weydo nidaamkan kootada ee waxa weeye la doonaya in bulshadan lagu soo geliyo waxa weeye saaxadda siyaasadda ama golayaasha qaranka kala duwan heer qaranka kala duwan ay kasoo muuqdaan waxa weeye inay samaystaan inay tartamaan oo iyagu ay tartamaan dhexdooda ay xoog saaraan inay 2-3 xildhibaan meel walba ay ku yeeshaan wakiilada ku yeeshaan guurtida oo ay ku yeeshaan deegaanka si waxa weeye ay ummadda kale dee baahiyahooga ummaddan ay matalaan iyagu baahiyahooga iyo wax kastoo tabashooyinkooda ay waxa weeye ay keenaan meesha oo ay badka soo dhigaan marka taasaa u ah inay ka dhigtaan balaan b haddii balaan eegaa kootadu shaqayn waayo taas maan anigu soo jeedinaya. maxaad u aragtaan tillaabooyinka lagaga gudbi karo caqabadaha idinka haysta dhinaca ka qayb qaadashada siyaasadda? runtii waxyaaba badan baa lagaga gudbi karaa. horta ta koowaad lagaga gudbi karayaan waxa weeyaan taa dastuurka oo in la bedelo inta dastuurkaasi samaysan yahay saana u qoran yahay caqabad laga gudbayaa ma jirto laakiin dastuurka oo la bedelo oo dib u habeyn lagu sameeyo anagana codkayaga la maqlo oo baaqayagaasi gaadho qolyaha dastuurka qoraya madaxweynuhuna ugu horeeya yacni madaxweynuhuna dee ka mid yahay dadka ansixinaya hadduu gaadho codkayagaasi oo laysla eego unba caqabadahan haystaan waan ka gudbi karana. horta ugu horeyn waxaa lagaga gudbayaa in la helo sharciyad oo sharciga kootada ee ku jira sharciga doorashooyinka inuu kaasi ansix helo waata koowaad ee lagaga gudbi karo inay dumarku ka qayb qaataan talada dalka. talabaadna waxa weeyaan wacyiga dumarka oo isaguna muxuu ahaaye inta badan uu liigayo qabaa'ilkan aynu wax ku qaybsanaynaa oo waxa weeyaan gabadhii marka uu tartamayo in adeerkeed odaygeedii adeerkeed faamiligeedii cid ka mid a isla markaana ay gabadhi tartamayso dumarkii inta badan waxa weeyaan qabaa'ilkiibaa dhinac ka taagan oo waxa weeyaan imaka wuxuu xildhibaan ku sheegay idinka ugu badan haddaanu ugu badannahay oo nadaysaan dee dumarkay u codaynayaan soo idinkaan idinkii dumarkii jiidanayo odaygaagii in adeerkaa iyo walaalkaabaan ahay aad leedahay ee qabiila u sheegateen
marka qabaa'ilkaas wax lagu dooranaya ayaa dumarkii muxuu ahaaye iyada laftarkeeduna marka waxaan odhan lahaa mid kaloo caqabadaha jabinaysay noqon lahayd hadday dumarku qabaa'ilkoodu waxa weeyaan dumare ay dumarnimada iyagu isu aqoonsadaan uunoy gabadhu gabadh u codayso ogaato maanta xildhibaanada golaha deegaanka iyo kuwa wakiilada ee muddada intaa leeg fadhiyay wax allaaliya waxay deegaanadii laga soo doortay ku celiyeen ma jirto waxay bulshadii soo dooratay waqti ay ku noqdeen iyo waxay u qabteen midna ma jirto marka inay ogaadaan dumarku bulshada wax loo qabanayay bay ka mid yihiin sababta loo doonayo inay dumarku golayaasha ka mid noqdaan waxa weeyaan waa dad naxariis badan waa dad bulshada u dhibirsan oo u dhaga nugul marka iyagu intaa ay fadhiyeen in leeg hadday dumar fadhiyi lahaayeen dalkeenaba horumarka muxuu ahaye meel heer sare gaadhi lahaa marka waxaan leenahay dumarka ha u codeeyaan waxyaabaha hortaaganna kolley caqabada waxaa ka mid a qabaa'ilka aynu wax ku dooranayno iyo sharciyadii oo aan dhammaystirnayn insha allah dee golahana waxaan leenahay sharciga dastuurka ha ku soo meeraysanine waxyaabaha kaleba dastuurka uma eegtaani arrinta dumarka ha la sii daayo iyo weliba kootada nambarka yara way mahadsan tahay nafiisa runtii horta caqabad baa keentay tiradan badan ee golahu fadhiyo maaha waxaan jeebka kala soo baxnay waxyaalaha badan aanu qabanan adigoo aqoon-yahanad baabato waad ogto inta xeer aanu ansixinay ee dalku ku kala socdo maaha dee qofka aan aqoonta badan lahayn wuu oran karaa waxba ma qaban laakiin xaqiiqda markaan eego wax badan baan qabanay dalku saa ugu kala soconaya xeerarka dhowr iyo 90 bay madaxa la sii gelayaan inta xeerarka kolley sanadka cusub in lagu soo daro waa laga yaabaa wixii golaha u qabsamay inta xeeree la ansixiyey laakiin annaga mar walba waan dadaalaynaa caqabadaha ay nagu xeeranna dee duruufahaasaa keenay annagu waxaanu iska samaysana maaha dastuurkuna wuxuu leeyahay golahan gole la doortay unbaa bedeli kara waa qodob dastuuriya xitaa iyadoo aan middo kordhin aan loo samayn baa dastuurka haddii lagu dho sidaa loo eego waxaweye golahan gole lasoo doortay unbaa bedeli kara runtii haddana kolley commissionka haddii caqabadahan aynu ka baxno doorasho waynu geli doonaa insha allah idinkana annaga waaba idin garab taagano annagaaba idin doonayna inaa waayo dumarku waxay qabteen iyo waxqabadkooda waa la ogyahay qof walba waa ka dheregsan yahay nadaafada dadkaasay ugu naxaan wax walba taa waa la ogyahay maamada laakiin duruufaha idinku xeeran iyo qodobka dastuurka haddii tala qaran laga yeesho waa meesha uu ka bixi karaa wax idin hortaagana male dalalkan africa ee nagu xeeranba saasay kooto loogu sameeyey laakiin dastuurkooda loogu cadeeyey haddii dastuurkeenu foodo noqdona dee innaga dhammaanteen foodaynu noqonaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa in tala qaran la isugu yimaado oo taladaa qaran caqabadaha lagaga bixi karo insha allah kolley himilada iyo yoolkana waa gaari doontaan kolley golahana waa ka mid noqon doontaan degaankana waxaanba jecelahay inaa idinkoo dee dumarku xagga nadaafadda wax walba way ku fiican yihiin laakiin wax walba waxay idinkaga xidhan tahay uun kartidiina iyo dadaalkiina iyo sidaas ugu codayn lahayd waxaad u aragta tallaabooyinka lagaga gudbi karo caqabadaha idinka haysta ka qayb qaadashada siyaasadda caqabada ugu weynay waa dhaqanka caqabad ka weyn oo maanta dalkii ka jirta waxa weeye haba yaraatee ma jirto laakiinse waxa keliya aan isleeyahay lagaga gudbi karaa waxay noqonaysaa in dhaqankeeda horta meesha laga saaro waayo dhaqanku isagaa ah ka dadkan kala sarraysiiyey waxa weeye maaha aayaddii qur-aanka kariimka haddaad aragto axaadiista haddaad aragto waxa weeye dadka uu simaya waxa weeyaan faslixuu bayna akhawaykum ilaahay wuxuu leeyahay walaalnimada dhexdiina wanaajiya axaadiistu sidoo kale way sheegaysaa in waxa weeye walaalnimada ay dhiiri gelinaysaa diinta islaamku si guud marka dhaqankaas soomaaliyeed ee aan diin ku salaysnayn waxa weeye inuu meesha ka baxo kaas haddii dhaqankaasi meeshuu ka baxo anigu shakhsiyan ahaan waxaan aaminsanahay in cid kasta oo cabanaysa ama beelo laga tira badanya ha noqoto ama naafo ha noqoto ama haween ha noqoto inkastoo in yarna waxaan ku darayaa in dadka laga tirada badan yahay isugu jiraan iyagu naafo iyo haween iyo intaasoo gruub oo doonaya maanta inay vulnerable groups noqdaanoo dad dee magaranaysaa jilicsana iyagu kuwani wax walba way isugu jiraan marka iyagaa isku huursanba marka hal gruuba laakiin laga dhigayo layidhi waa laydinka tira badan yahay layidhiyo la leeyahay laakiin waxay isugu jiraan intaasoo gruub way isugu jiraan laakiin dhaqanku waa caqabada koowaad ee haysata waxa lagaga gudbi karaa marka haddii ummaddan ay tahay ummad islaamade in diinta islaamka usoo noqoto sababaha lagaga bixi karo waataynu ka sheekaynay runtii waxaan qabaaba dastuurka anigu rayi ahaan in la furo sababtoo ah hadda dalkeenna waxaa laysku haystaa mar walba oo doorashadu dib igu soo caqabadaha ku ah waa saami qaybsiga
markaa saami qaybsiga iyo beelaha laga tira badan yahay iyo dumarka intaa haddii loo sameeyo oo barogaraam loo sameeyo waa laga gudbi karaa baan aaminsanahay. beelaha laga tira badan yahay runtii dastuurku wuxuu leeyahay waa dhaqan xumo in la yiraahdo waa laga tira badan yahay, waayo dadku waa isku mid, 6 gobolba way degaan, hadday isku tashadaan oo ay tala midaysan la yimaadaan way istijaabin karaan, 2-3 way soo saari karaan. dalka meel aanay ka joogin ma jiro, marka iyaga laftoodu inay si fiican oo dadnimo leh ay u dadaalaan oo aanay oran waa laga tira badan yahay, ay dadaal la yimaadaan waa muhiim. dastuurkuna wuxuu leeyahay in la yiraahdo waaba dembi, waa laga tira badan yahay, waayo dadku waa just same, way wada siman yihiin, waa dad islaama, waa dad isku dhaqana, waa dad isku diina, waxba isma dheera. marka iyaga laftooda inay dadaal la yimaadaan baa kusoo jira. waayahay maxaa golaha baarlamaanka uga meel yaala in arrimahan aynu ka hadlayno maanta dhan? bismillahi raxmaan raxiim. golaha waxaa uga meel yaala dee kolley golahu waxa weeye isaga runtii mar walba isagu wuxuu u taagan yahay inuu xeerka sameeyo oo uu xeerarka uu dhaqan geliyo, laakiin xeerarku inta badan 3 siyood bay ku yimaadaan. mid waxay ka yimaadaan xukuumadda oo xagga wasiirada iyo xaggaasay soo maraan, saasay golaha ku yimaadaan. qaar waxaa dejiya golaha oo soo jeediya guddiba barogaraamka soo diyaarisa, markaa golaha horkeenta. qaar 5,000 oo qof inay soo saxeexaan oo ay isku soo raacaan oo si fiican loo saxeexo ay golaha keeni karaan. marka mar walba golahu isagu wuxuu u taagan yahay inuu systemka hirgeliyo, laakiin dee caqabadaha ku xeeran waan maanta dhan waynu ka hadlayna, waynu qeexnay, waynu sheegnay. caqabadaha unbaa hortaagana, golu wax allaale wuxuu uu ka hagranayo ma jirto. marka xalka wuxuu noqonayaa in dastuurka la bedelo, dastuurka loo furo. taasaa lagu kala badbaadi karaa, dalkuna horumar iyo development ku samayn karaa, waayo waxyaalaha badan ee laga cabanayo oo dhan waa la xalili karaa. dastuurkana ilaa 98 ilaa 97 ilaa dee intii dastuurka la abuuray 2003 baan malinaya lama taabanba. marka 2000kii bay ahayd exactly lama taaban. marka maanta waxaan isleeyahay waa waqtigii la taaban lahaa buu soo gaadhay, laakiin waxaa mar walba barobaraynaya buuqa dee xaaladahan hadda doorashooyinka la isku haysto. laakiin wax walba waxaa laga bixi lahaa iyadoo laysu tanaasulo oo dalka iyo dalkaba loo turo, oo xisbiyada qaranku ay si qaran oo heer caalamiya u fikiraan si bulshadani ay hore ugu socoto. marka bulshadanna runtii waa dadweynahan reer Somaliland waa dad iimaanka qaba oo aan buuq badnayn, laakiin xisbiyadii baa muran mar walba la soo taagan. laakiin muranka haddii laga gudbo wax isku raacaan, waxaan u malaynayaa inaan himiladeena iyo yoolkeena aynu kor u qaadi doono, aynu gaadhin doono waxaynu doonayno. waayahay haddiiba ay suurtageli weydo in dastuurka dib loo furo, maxaa idinka meel yaala? xildhibaan waxaad aada ugu adkaysatay ood u soo celcelisay dastuurka. iminka maanta madashan aynu fadhinana doorashadii marka iminka arrimahan yare ee xisbiyada ka dhexeeya lagu heshiiyo dee waqti yaroo gaaban weeyaan. markaa siday suurtagal ku tahay in dastuurka la furaya ay ku xidhnaato arinta kootada dumarku, dastuurkana aynu ognahay inay waqti qaadanayso? muddo dheer baa dastuurka laga hadlayay, arrimaha la isku haya laga hadlayay. doorashadan ka horeysay madaxweyne Riyaale waa tii xeerka baarlamaanka, xeerka doorashooyinka isla kii uun lagu celiyey, xilligaaba waa laga hadlayay. marka maadaama ay waqti dheer in constitutionka Somaliland la furo muxuu ahay laga soo hadlayay lana furin, ay adag tahayna furitaankiisu constitutionka Somaliland. waxaan u arkayaa arinta doorashada iyo weliba arintan kootada ee dumarka, haddii ay constitutionka dib ugu celisaan constitutionka ku xidheen, in arinta dumarka ay ka dhigaysaan qowda maqashi waxna ha u qaban. maaha inagu mar walba waxaynu ku xisaabtaminaa sharciyad, sharcigeennuna inuu fawdo noqdo maaha. laakiin haddii tala qaran la isugu yimaado waa la isqancin karaa. dastuurkuna sidaan hore uga dhawaajinay wax weyn maaha oo dee aayad qur-aan maaha, wax waa laga bedeli karaa, kaabis iyo wax ka bedel. tala qaran bayna ku xidhan tahay in la isaga yimaado. laakiin haddii balaaba ay suurtoobi weydo, ay noo dhici weydo, dee inaa isku tashataan oo aa ololeysaan oo campaign extra la timaadaan, dee wax idin dabrayaaba ma jiraan. dadkuna way idin ogol yihiin, waxqabadkiinni baa la arkay. marka inaa moral supportna waa helaysaan, inaad dadaashaan. laakiin inta dastuurku sidaa yahay, goluhuna ra'yi buu ka qabaa, dastuurkaas ku dhegay. dastuurkaana markaa waxaan xal loo heli karin ma jire. taas dee xal waa loo heli karaa, waqtina qaadan mayso. 3 months ugu badnaan bay qaadanaysaa inta laga doodayo. inta waa system buu leeyahay, saasaa looga doodaya waqtiga ilaa 3 bilood ugu yaraan in laga doodu leeyahay. laakiin wax dhiba looma arkayo, lamana qaadanaye. hadday xitaa
suurtoobi weydo tartan waa kusoo baxaysaan baan qabaa anigu haddaa niyadda xidhataan qalbigiinana aada u xidhataan dadaal egastara oo dheeraadana la timaadaan sababta ay dastuurka ugu dhegsan yihiin golahu waxaan dareensanaya inay dan weyni ugu jirto arrintan saami qaybsiga saami qaybsiguna runtii fayfar uma aha dumarka waayo qabaa'il iyo gobollo ayay wax ku qaybsanayaan gabadhna qabaa'il waxba laguma siinayo marka annaga dastuurka furitaankiisa hadduu dhowaadiyo hadduu dheeraado toona ma sugaynay muwaadiniin xaqle baanu nahay artikalkaasaa annagabana siinaya xaqayaga waananu helaynaa kootadaas weliba waa markii horreysay ee executiveka laga soo gudbiyo waxa weeyaan dadaalka iyagana waanu samaynaynaa dulqaadna in badan baanu soo samaynay dulqaadka iyagii badnaa intii aanu qalad noqonin oo aananu qalad ku sixin oo aananu bulshada intii u badnayd baan nahaye aananu xanaaqin arinkaasi ku jira sharciga doorashada ee kootada haweenka ee nambarka yara inuu ansaxaanu idinka filayna haddii la yidhahda constitutionna annaga ha nagu xidhina aadaba wadaanoo weliba uu ku jiro arinka saami qaybsiga oo inan ragdabada ka wado oo qabaa'il iyo waxaas fawdadaa ku dhex jira waxaweye waa waxa somalilan horumar iyo development ku samaynaysaa himilada somalilan waxaweye inay ictiraaf hesho oo ay just same ay wax wada qaybsato wax wada yeelato marka taasi waaba lagama maarmaan yoolkaasi inuu jiro oo wax la wada qaybsado laakiin tiina anagu maba diidanintiina oo anigu waaba aniga idiin ololaynaya laakiin sharcigaasa idinkaga xaniman tahay sharcigana dee waad ogtahay wadooyinka la marayo iyo meelaha loo maro marka waxba yaana wadada idinka khaldamay hadday taas idinku soo wadantana waa tartamaysaan annana waa idin soo dhaweynaynaa annaga mar walba heegan baan idiin nahay wax annagoo aanu wax dhowranayno aan idinka xastaynana ma jirto waan ognahay waxqabadkiina horaan kuugu sheegay iyo saa activity ilaa somaliland intay la soo noqotay xornimada ilaa intaasoo dhan saa u dadaalayseen saa u shaqaynayseen 7 sano activity-ga iyo dadaalka ay samayseen waa laga ogyahay waana laga dheragsan yahay laakiin dee in sharciyada laga boodo oo sharciyada ku tumataan waa khalad laakiin waa laydiin dadaalaya annaga wixii nagu xidhannaa waan dadaalkeedaanu leenahay waan idiin dadaalayna wabillahi towfiiq bismillahi raxmaani raxiim anigu waxaan ku darayaa xeerka kootada waxa weeye qodobkiisa ujeedada horta xeerka kootadu macnaheedu waxa weeye in saami go-an ay dadkaa ka maqan saaxaddu dhexdooda ay la siiyo si ay ugu tartamaan taa macnaheeduna waa inay gudihii usoo galaan meesha ay ka maqnaayeen oo ah political participationkii ama ka qaybgalkii siyaasadda isla qodobka 6 ee xeerkaasi wuxuu sheegayaa ansax maaha xeerku laakiin si qodobka 6 ee xeerka kootada waxa uu sheegayaa in saami go-an ay beelaha laga tirada badiyaha ay ka helaan tusaale ahaan A iyo B iyo C buu dhigayaa xarafka A waxa uu sheegayaa golaha wakiilada guurtida deegaanka iyo guurtida iyo wakiilada saddexdaaba in hal xubnood ay ku helaan saddex xubnood waxa weeye ka helaan markaa deegaankii iyo guurtidii iyo wakiiladii ay wax ka helaan waayahay inagoo gabagabadii barnaamijka ku dhow waxaan su-aal common aan wada weydiin doonaa xildhibaanka iyo weliba ka qaybgalayaasha kale iyadoo ay jirto xildhibaan waxaad ku celcelisay hadeeran ku arkay haweenku dee cambayn ha samaystaan oo ha tartamaan oo waanu idin garab taaganahay mid dhaqan baa jirto dumarkii u diidaysa mid dhaqaalaha jirta oo ka siman yihiin saddexdoodaba iyo weliba mid deegaan sidee bay markaas iyaga ay doorasho u geli karaan iyagoo saddexda caqabadood bay haystaan marka laga yimaado dastuurka mahmaaba waxay tiraahdaa haddii dayax la waayo xidigaha lagu gudaa marka kolley dee taasi waa dabar waynu ognahay laakiin wax walba qadarka ilaahayna wuu jiraa laakiin haddaad halkaa iska fadhiisatay aad tiraahdo waxbaan sugaya aana dadaal la iman anigu waxaan qabaa hadday dadaal la yimaadaan tii ilaahayna meesheeda way taallo ay dee dadaal la yimaadaan shaydaankana iska naaraan way soo bixi karaan wax walbana waxay ku xidhan yihiin activitigooda iyo dadaalkooda haddiiba iyadoo ay jiraan sababo dhaqan duruufo dhaqan kuwa dhaqaale iyo kuwa deegaan marka dastuurka laga yimaado sidee bay iyagu dhexdooda isaga dooran karaan saddexdii aan kasoo hadlaynay naafadii iyo dadkii laga tirada badnaa iyo haweenka bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeye haddii la waayo waxaa la yidhaahdo waa sida xildhibaanku sheegay haddii dayax la waayo xidigaa lagu gudaa haddii mar walba adiga horta waa qorshe cid kasta oo tartamaysa ama beel laga tira badiya ha noqdo ama naafo ha noqdo ama haween ha noqdo cid kasta oo doonaysa tartan inay gasho oo doonaysa waxa weeye inay meel ay ka maqnayd soo gasho dadaalku cali dushiisu saaran dadaalku qof kasta ama group kasta ama koox kasta oo dadaashaana waxa ay gaaraysaa heerka ay doonayso marka goolka meesha saynanka meesha u calaamadsan marka dadaalka dushiisu waxa uu saaran yahay in qof kasta oo doonaya meel uu ka maqnaa inuu soo galo marka dadaal xaaj cabas uu gaadhay xildhibaankii maxamed waa siday soo sheegeen haddii dastuurku
xilligaa uu gaari waayo in la furo oo yacni doorashadu kasoo horumarto caqabadaha intaa leegina ay jiraan in la dadaalo oo yacni laysbahaysto koox kastaaba dhankeeda usoo kacdo unbaa lagu gaari karaya halka la higsanayo waliba dhankeeda u dadaasho mise saddexdii kooxoodba ma inay wada kacaan oo ugu yaraan xildhibaano ay kusoo baxaan golayaashaas. horta haweenka reer somalilan dadaal kuma yaro waxa weeyaan tirada ugu badan inta badanna waxa weeyaan maanta marka xaqaa'iqa la eego bulshadeena cidda wax soo saarka bulshada soo gelisa qoys walba hooya mas-uuliyad badan isa saartay oo muxuu ahaye iyaga bread winnerskiya maanta wax badan bay qabteen laakiin waxaad moodaa inaan dadaalkooda ay sameeyeen dee ilaahay baa abaalkooda siin doonee bulshada reer somalilan aanay u ogeyn haweenka somalilan 2012 markii ay doorashada dowladaha hoose isla kootada laftarkeeda golaha wakiiladu ay ka saareen ajandihii ay yidhaahdeen waa unconstitutional dee dumarkii sharaxnaa muxuu ahaye anagu maanaan niyad jabin dumarkii sharaxnaa sidiibay iyaguna muxuu ahaye ay muxuu ahaye ajandahay markaa ka saareen golaha wakiiladu dumarkii sharaxnaa sidiibay tartankii u galeen 10 baa soo baxay runtii dee dadaal yaraan may ahayn marka haweenka somalilan isku duubnina way leeyihiin dadaalna way leeyihiin laakiin caqabadahan soo jireenka ah ee aynu ka wada dhawaajinay horta waa kuwo horena u hortaagnaa maantana hortaagnaanaya haddii la yidhaahdo dee muxuu ahaye kootadaasi maanta shaqayn mayso horta dumarku way isku tashadeen oo maanta dadaalo badan baa socda oo dhinac walba leh waxaanu aaminsannahay in dumar badani ay soo baxayaan laakiin waxaa qalbiga usii sheegtaa nin kastoo sharaxnaayo inaanay maanta gabadh cod ku siinin waayahay doodii way nala sii dheeraatay waan jecelahay intaa in ka badan inaanu sii doodno oo haddii way isfurfuraysaa qof waliba wuxuu jecel yahay intaa in ka badan waa maskaxdiisa ku jirta laakiin waqtiga ayaan inoo saamaxaynin aad baan ugu mahad celinayaa ka qaybgalayaasha xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka socda golaha wakiilada somalilan shayme axmed yuusuf oo iyadana ka socotay dalada naafada qaranka nafiise yuusuf maxamed oo ururka nagaad ka socota iyo weliba maxamuud saleebaan cabdilaahi oo ka socda adam academy barnaamijkana iska kaashaday bulsha TV iyo waliba Adam Academy waxaanu leenahay aad baa u mahadsantihiin qoladaasi iyagu Adam Academy waa Mune Maxamuud Saqadiye waliba bulsha TV iyo asxaabtii kale oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma og tahay in tiifiyada soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayey satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah afrika eshiya qaybo ka mid ah yurub iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in le kadib kubaadh frequency-ga kuu soo baxa adiga oon jihana u wecwicin dhiishka kubaadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin.